laakiin xaqiiqada dhabta ah ayaan u sheegi doono ma uusan ogeyn. ugu dambayn waan isku imaannay waxaan wada sheekaysannaba waxaan ku iri runtii qof walba oo bid'aadan ah adduunyadan ciqaab iyo dhibaato ayuu ku maraa, laakiin qof walba sabarkiisa iyo iimaankiisa ayuu Ilaahay fiiriyaa. anigu runtii ciqaab iyo dhibaato adduunyo ayaa maray, ma u malaynaya intaan noolahay oo adduunka aan joogo dhibkii aan soo maray dhib ka weyn inaan mari doono. markaasuu dhahay maxay tahay? waxaan ku yidhi aniga wiil ayaan isjeclaanay, aaminay, ku kalsoonaa, weli wuxuu ahaa wiil aad igu naxariisan jiray, jacayl iyo farxadna i siiyey. waxaan wada galnay balama aad u tiro badan. ugu dambayntii lacaguu arooskeena ugu talagalay ayaa ma aragtay Hindiya isbitaal kaga soo dhammaaday. aad buu u walwali jiray mar walba. anigu xilligaa jaamacad ayaan dhiganayay. waxay iga codsaday meher qarsoodi ah, waxaan ka diidaba jacaylkii aaminaadii aan ku qabay darteeda ayaan ka ogolaaday. laakiin maalintaan ogolaaday ayaa nolosheedii oo dhan la xiray, ma aanan ogeyn. ilayn ninka mar walba aan labadeena wada kulanno muuqaalo ayuu iga duubi jiray. ninkii aan jeclaa kalsoonida ku qabay waxa uu suubiyey. maalin ayuu wuxuu igu dhahay anigu xaas iyo carruur ayaan leeyahay, taas anigoo ka naxsana wuxuu igu daray waxaan rabaa xaaskayga way dhashay inaa caawiso guriga ugu soo shaqayso. markii aan miiska u garaacane muuqaaladeedii sawiradeedaa lay tusay. maalintaa wixii ka dambeeyey qof rakaato ku jiro ayaan noqday. ugu dambayn rafaadii dhibaato dheer ninkii waa uu geeriyooday, asay aanan la ii ogeyn ayaan qaaday. noloshayda dhabta ah waa midaas. anigu waxaan ahay gabar meher hore soo martay oo ninkiina uu ka geeriyooday, ninkiina uu xumeeyey. haddii aad raalli midaas ka tahay diyaar ayaan ku ahay. wuxuu igu dhahay adiga miigu dheelaysaa? wallaahi aan ku dhahay wax walba aan kuu sheegayo wax xaqiiq dhab ah. markaasuu igu dhahay abaayo dhibka adiga ku soo gaaray aad baan ugu xumahay. runtii ragga kaasoo kale ayaa ceebeenaayo. diyaar ayaan u ahay wax walba aad tahay inaan kugu qaato. habeenkaasi anigoo faraxsan ayaan soo baxay oo gurigayga soo aaday, waayo culays weyn oo isaaran ayuu ahaa. waayo wiil walba oo xiriir ii soo bandhigto waan diidi jiray. laba mid ayaan u diidi jiray: raggii oo kalsoonidii iyo aaminaadii aan beelay, iyo maxaad u sheegaysaa qofkan? waayo dadkii oo dhan waxay u maleeyaan inaan gabar ahay. markaan